Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacan wanaagsan daawada meel walba aad naga daawanayso. Ku soo dhawow qaybtii lixaad ee sheekadii jar iska xoorkii yaraay. qaybta shanaad ee sheekada waxay inoo joogtay dhowr kale oo skiimowga ka mid ahaa iyana deyrkii ayay ka soo boodeen. qaybta lixaadna waxay ku bilaabmaysaa waxayna warmahoodii la galeen deyrkii dhexdiisa ilaa aydii ay gees u wada eriyeen halkiina ka soo qaadeen Anwar oo labada lugood iyo labada gacmoodba dhiigu da'ayo. habeennimadii ayaa xaafadii Naajoog oo ahayd tan ugu weyn xaafadaha lagu qabtay martisoor wacan oo lagu maamuusayo martida yaryar. xaafadaas oo sidaan sheegna ka samaysneyd baraf waxaa gudaheedii lagu iftiimiyey faynuus laga qoray dhagax laguna shiday xayrta badda. wax yar kadibna waxaa la keenay cashadii waxaanay martidii ku fadhiyeen bakado yaryar oo laga qoday baraf oo lagu dulgoglay haragga dhubbada. iridda guriga waxaa ku soo xoomay carruurtii iyo aydii, dumarkiina gadaashoodii ayay soo joogsadeen iyaga oo dhammaantood fiirinaya martidan yaryar. sheeko badani ma dhex marin martida iyo qoladii loo martida ahaa. xoogaa su'aalo ah oo gaagaaban ayaa cali u jeediyey qoladii isaga oo ka wakiil ah saaxiibadii. Naajoogna sidaas si leeg ayuu xoogaa su'aalo ah u soo jeediyey. markii wax yar sidaa waraysigii laisku dhaafsaday ayuu Naajoog sare kacay oo hadal jeediyey oo yidhi, martidu way daalan tahay, waxaana markaa habboon in ay seexdaan. waxaan markan kadib u wadayaa halkii ay seexan lahaayeen. subaxii markay gaadhana waxaynu u raaci doonaa ilaa dayuuradoodii si ay ugu soo qaataan waxay ugu baahan yihiin. hadday markaa la noqoto inay guuraan waxaynu ka caawin doonaa aydiina kuwa ugu xooga waaweyn si markaa ay u tagaan ilaa meesha ay rabaan iyagu. halkaa markay arrintii marayso ayaa waxaa inankii Anwar madaxiisii ku soo dhacday markabkii meesha fog ka muuqday ee ka qarsoomay. markaasuu cali warsaday bal inuu iyaga weydiiyo, hase yeeshee mar alle markii su'aashii ka soo baxday afka cali ayaaba qoladii mar keli ah oon jireeraca gashay, wejigoodina caro ku duushay. markaasuu Naajoog cod dheer oo beddelan ku hadlay oo yidhi, markabka inoo dhow waa mid aan jirin, mana suurtoobi karto in halkaa maraakiib timaado. maraakiibta aad sheegaysaan oo badda marayso halkan awood ay ugu soo dhowaadaan ma lahan. ninkii odaga markuu erayada dambe lahaa waxaa hadalkiisii ka muuqatay caro iyo hanjabaad qarsoon oo u dhigayo yaryarka inay su'aal dambe oo ku saabsan markab aysan soo jeedin. yaryarkii yaabbaa alla u keenay oo waxay ku hadlaan bay garan waayeen markay maqleen hadalkii odaga, waxaana ka yaabisay dafiraadan indhaha loo geliyey, waayo iyagu siday wadkood u hubaan ayay u hubaan in markab sheedda ka muuqday, showladiisuna intay cabbaar sii bidhaamaysay kadib qarsoontay. iyaguna markaa hamiga ayay ku qabsadeen marka uu soo dhowaado inay raacaan oo dhulkoodii ku tagaan. nimankan skiimowgase waa kuwaan dafiray inuusan meeshu markab uusan ka muuqanba, iyaga oo waxaan sabab ah siin. hadday su'aashan soo celiyaanna eegmada nimankan skiimowga ahi waxay ahayd mid dhimbilo cara ahi ka duulayaan ilaa iyo intii ay yaryarku soo hadal qaadeen markabka, sidii waxay su'aashuba tahay meelka dhac aan la qaadan karin. waxaana nimanka ka muuqatay diidmo, sidii waxay masiibo weyn ku dhacayso hadday yaryarku ogaadaan markabka iyo arrimihiisa. iminka iyo haatan nimankii skiimowga ahaa iyo nimankii yaryaraa ee martida ahaa waxaa ka dhex dhaca shaki, diidmo iyo aamin darro. markaas qoloba qoladii kale ka fishay inay halis kaga timaado oo foojignaan colaad kala gashay. intaas waxay noogu dhammaaday qaybtii lixaad ee sheekadii jar iska xoorkii yaraa.